waxaa gebi ahaan dunida ka istaagi doona isticmaalka dollarka Mareykanka. The dollar is extending declines. The US dollar is extending declines. The dollar continues to be on a decline. US dollar. US dollar. The US dollar. US dollar. The US dollar. dollarku wuxuu hogaaminayaa uu lambar 1 u yahay dhammaan lacagaha laga isticmaalo dunida, laakiin hadda 80 sano kadib waxaa meeshaas ku soo dhamaaday qiimihii uu lahaa dollarka. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy, and the American economy is by far the strongest in the world. The SWIFT system that actually became weaponized by the US. awoodii Mareykanka uu lahaa uu ku faani jirana meeshaas ayay ku soo gabagaboobaysaa. Soomaaliya dhibaato intee la eg ayay wajahaysaa maadaama lacagta dollarka kaliya laga isticmaalo oo maanta aan la isticmaalin shilin Soomaali. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeen waxaan ku sharxaynaa cabsida laga qaba in dollarka qiimihiisa uu beelo iyo saameynta dhaqaale ee ku yeelan karta dunida. haddaba maxaa ku dhacaya dollarka? xaguu kaga socdaa dagaalka? China's taken over, and China, I heard a couple of people say, well, the dollar will never lose the dollar standard, wants to change the standard, the currency standard. And if that happens, that's like losing a world war. waxaa soo baxay wadamo la magac baxay BRICS waxayna ku heshiiyeen in gebi ahaan ay meesha ka saaraan isticmaalka dollarka, waxayna sameysteen lacag u gooni ah oo ay ku bedelayaan dollarka. wadamadan BRICS la magac baxay waa 5 dawladood oo isku tagay oo kala ah Brazil, Russia, India, China iyo South Africa. An influential group of emerging economies: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. qorshahooda waa inay isticmaalaan lacag u gooni ah oo ay u adeegsadaan kala iibsiga, ganacsiga iyo dhaqaalaha ka dhaxeeya wadamadan, sida saliidda iyo shidaalka inay ku iibsadaan lacagta ay ayaga sameysteen. dollarka waa lacagta kaliya ee lagu kala iibsado saliidda iyo shidaalka, waana lacagta kaliya lagu sameysto international investmentiga ama maalgashada caalamiga ah. sidoo kalena waa lacagta kaliya wadan walba uu isticmaalo una adeegsado wax kala iibsiga. haddii laba wadan uu heshiis ganacsi kala dhex maro, lacagta kaliya adeegsanayaan waa dollarka. Soomaaliya iyo Kenya hadday maanta wax kala iibsanayaan, Soomaalida ma isticmaalayso shilin Soomaali, sidoo kalena Kenyaanka ma isticmaalayaan Kenyan shilling. waxa kaliya ay adeegsanayaan oo u dhaxeeyo waa lacagta dollarka. haddaba maxaa sababa in dollarka wadan walba uu adeegsado wax walba la kala gadanayana loo isticmaalo lacagta dollarka? lacagta dollarka waxaa loo yaqaanaa inay tahay world reserve currency, waa kaydka aasaasiga ah ee lacagaha dunida. haddaba sida uu dollarka ku noqday inuu hogaamiyo dhammaan lacagaha dunida loona isticmaalo wax walba oo la kala iibsanayo, taariikhda ayaan dib ugu noqonaynaa meesha uu ka soo bilowday awoodda dollarka. qarniga 19aad lacagta pound ee laga isticmaalo wadanka Ingiriiska ayaa waxay ahayd lacagta kaydka aasaasiga ah, waxayna ahayd lacagta ugu awoodda badan dunida. laakiin wax walba waxay isbedeleen kadib dagaalkii labaad ee dunida. waxaa dunida qabsatay dhaqaale xumo zaa'id ah, lacagta pound-kana qiimaheeda dhulka ayay gashay maadaama boqortooyada Ingiriiska isticmaashay dhammaan wixii kayd u yaalay. si looga gudbo dhaqaale xumadii ka jirtay dunida, waxaa la qabtay shir degdeg ah. 1944 waxaa dhacay heshiiska la magac baxay Bretton Woods, waxaana lagu heshiiyey in dollarka uu noqdo lacagta kaydka ee dunida. waxaa la dejiyay nidaam lacageed oo caalami ah, sharciyo iyo qaanuunyo ay ku dhaqmi doonaan dhammaan wadamada caalamka si looga gudbo dhaqaale xumadii ka jirtay dunida. sharciyadii waagaas la kala saxiixdana sidaan ayay u dhignaayeen in qiimaha dollarka lagu jaangooyo qiimaha dahabka, sidoo kalena lacagta kaliya ee dahabka lagu iibsan karo inay tahay lacagta dollarka. lacaga kale waad isticmaali kartaa, laakiin aad ayay qaali kugu noqonaysaa maadaama dollarka iyo dahabka la isku jaangooyay. in saliidda iyo shidaalka lagu iibsado dollarka kaliya, in maalgashada caalamiga ah lagu sameeyo lacagta dollarka, in dawlad walba ay isticmaasho lacagta dollarka hadday wax soo iibsanayaan iyo hadday dawlad kale heshiis ganacsi la galayaan, in sarifka lacagaha lagu beesgareeyo lacagta dollarka. oo haddii maanta aad wadan ka tagto wadan kala tagto, lacagta wadankaas laga isticmaalo haddii aad rabto inaad ogaato reedkeeda waxaad ku qiimeynaysaa dollarka. haddaba heshiiskaas ayaa la kala saxiixday sanadii 1944. meeshaas ayana ka soo bilaabatay awoodda uu leeyahay dollarka iyo inuu hogaamiyo dhammaan lacagaha laga isticmaalo dunida. And underneath that kan awoodiisa ayaa sii ziyaaday mid dhaqaale iyo mid ciidanba maadaama lacagtiisa meel walba laga isticmaalayo. Mareykankana waxay bilaabeen in lacagta ay u adeegsadaan qaab siyaasadeed. wadamada uu dagaalka kula jirana wuxuu u adeegsaday inuu ku cunaqabateeyo lacagta dollarka maadaama uu maamulayo dhaqaalihii dunida. maalmihii ugu dambeeyana waxaa soo baxday in wadamadan la magac baxay BRICS ay bilaabeen heshiiskii waagaas la kala saxiixday in meesha ay ka saaraan, waxayna sameysteen lacag u gooni ah. Nations Brazil, Russia, India, China, and South Africa have announced plans to develop a new currency. Their goal is to reduce reliance on the US dollar and other Western currencies as well, and protect themselves from international pressure. In fact, Brazil and China have already... wadamada Middle East ee Carabta ayay saameyn ku yeelanayaan maadaama wadamada Carabta ee banaanka u suuq geeyaan saliid aad u badan. China wuxuu heshiis kala dhex dhigay wadanka Iran iyo Saudi Arabia,
waxayna ahaayeen laba wadan oo aad isku nacib siyaasadahoodana isdiidan midaana waxay dhabarjab ku tahay wadanka Mareykanka maadaama uu saaxiib dhow la ah wadanka Sacuudiga. Well, Iran and Saudi Arabia have agreed to re-establish diplomatic relations and reopen embassies within 2 months. That's after a 7-year diplomatic breach which has fueled tensions in the Gulf and deepened conflicts from Yemen to Syria. Sacuudiga waa wadanka koowaad ee soo saaro inta ugu badan saliida inta badan wadamada caalamka Sacuudiga ay saliida ka iibsadaan. Haddaba wadamadan BRICS waxay heshiis la saxiixdeen wadanka Sacuudiga ujeedka heshiiskaasna in lacagtooda ay ku iibsadaan saliida si ay meesha uga saaraan isticmaalka dollarka maadaama sharciga ganacsiga caalamiga uu dhigayo in saliida lagu iibsan karo lacagta dollarka. Sacuudiga hadduu heshiiskan aqbalo Mareykanku waxay la kulmayaan dhaqaale xumo aad u weyn. Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan. But as ties with Washington continue to be strained, Beijing and Moscow are diversifying. China and Russia have taken another step closer towards dumping the dollar and agreed to trade in their respective national currencies, the Russian ruble and the Chinese yuan. sidoo kale China iyo Russia waxay saameyn aad u weyn ku yeelanayaan wadamada Afrika. Chinese-kan waxay mashaariic aad u weyn ka fulinayaan wadamo badan oo Afrika ah. Sidoo kale wadanka Ruushkana ayaga waxay saameyn ku yeelanayaan wadamada Afrika waxayna ka cafiyeen lacag deen ah oo qiimaheedu dhan yahay 20 bilyan oo dollar si ay u soo jiitaan saaxiibo dhowna oo la noqdaan wadamada Afrika. Wargeyska New York Times ayaa waxa lagu daabacay sidoo Putin haliyay uga noqday wadamada Afrika. hadday sidan dhacdo oo lacagta dollarka meesha laga saaro Soomaaliya waxay wajahaysaa dhaqaale xumo tii abid ugu xumeed maadaama Soomaaliya aan laga isticmaalin shilin Soomaali oo Soomaalida oo dhan ay ku tiirsan tahay lacagta dollarka wadamada kale waxa laga yaabaa inay u baxsadaan lacagahooda laakiin bangiga dhexe iyo dawladda Soomaaliya hadday waxba ka qaban Soomaaliya waa loo yaabaa dhinaca kale hadii laga eego in isticmaalka dollarka dunida laga istaajiyo wax kala dhow dhici doona ma ahan sababtoo ah dhaqaalihii dunida wali ayaga ayaa hadda gacanta ku hayo xitaa hadii dollarka gacantooda ay ka baxdo dhaqaalaha ayaga ayaa sii haysan doono shirkadaha dunida ugu waaweyn brandnyada caalamiga ah teknolojiyada high tech companies-ka kulligood waxa ay ku yaalaan wadanka Mareykanka ayaga ayana gacantooda ugu jirtaa taasoo ka dhigan wali inay sii maamuli doonaan dhaqaalaha iyo ganacsiga dunida lacagta dollarkana si beenbeen hawada kaga ma bixi doonto waxay qaadan doontaa waqti aad u dheer muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay hadii aad nagu cusub tahay soo dhawow waqtigaagana waad ku mahadsan tahay